السلام عليكم ورحمة الله. برنامجka maanta ayaan waxaan ku soo qaadan beentii ay BBC-du ugu xaglisay Kenya oo ay ka dhigaysay in badii badankeed ay maxkamadda ICJ u xukuntay waddankaasi Kenya. 13 Oktoobar warbixin ay BBC-du qortay ayaa waxa cinwaankeedu ahaa muranka badda Soomaaliya iyo Kenya ICJ. afar qodob oo qareennada Soomaaliya ee ICJ ay diiradda saareen doodii bishii March. warbixintan ay BBC-du qortay maalintii ku xigtay markii ay maxkamaddu ku dhawaaqday xukunka kiiska xadbadeedka Soomaaliya iyo Kenya. haddaba markii aad warbixintaas akhriso ayaa waxaad ku arkaysaa khariidad sharaxaysa sida ay maxkamaddu u xukuntay iyo xadbadeedka dawlad walba u aragtay inay iyadu iska leedahay. haddaad khariidada u fiirisid ayaa waxaa ka muuqda xadka ay Kenya sheeganayso iyo midka ay Soomaaliya sheeganayso. waxaana u dhaxeeya laba lane oo midkood ay ku qoran tahay lane-ka la siman xadka oo Englishka loo yaqaano equidistant line iyo lane-ka la hagaajiyay oo Englishka ah adjusted line. waana xadkii ay maxkamaddu xukuntay inuu noqon doono xadbadeedka rasmiga ah ee labada waddan. haddaba markaad u fiirsatid khariidadan ay BBC-du soo gudbisay ayaa waxaa ku soo baxaya wax ka duwan warbixinadii hore ee sheegayay in badii badankeed Soomaaliya loo xukumay. oo markaad khariidadan fiirisid waxay u muuqataa inay maxkamaddu badii 50% ama wax ka badan siisay waddanka Kenya. haddaba ma BBC-da khaldan mise warbixinada kale ee sheegayay in badii badankeed la siiyay Soomaaliya ayaa khaldan? waxaan marka daba galay meesha uu sawirkaani ka yimi oo qaybta af Soomaaliga ee BBC-du maysan samayn sawirkan oo waa ay tarjumeen oo kaliya. haddaba xagee ayuu ka yimi? sawirkan ayaa wuxuu ka yimi BBC-da qaybteeda Englishka oo isla maalintii ay maxkamaddu xukuntay kiiska badda ayaa waxay BBC-du ka diyaarisay warbixin ay cinwaan uga dhigtay maxkamadda ICJ oo diiday kiiskii Kenya ee muranbadeedka Soomaaliya. haddaba cinwaanka waxaa ka cad in maxkamaddu ay ka soo horjeesatay dacwaddii Kenya. markaad akhrisid ayaa waxa ugu horeeya oo warbixinta lagu sheegay ayaa ah in maxkamaddu ay badanaa badii ay u xukuntay Soomaaliya. laakiin markaad wax yar akhrisid ayaa waxaad la kulmaysaa khariidadan burinaysa waxa ay BBC-du sheegaysay iyadoo sawirku ka dhigayo in maxkamaddu 50% ama wax ka badan ay badii siisay Kenya. isla sawirkan weeye midii ay BBC-da af Soomaaligu tarjuntay iyadoo uu la socdo equidistant line-ka. haddaba maxaa keenay in BBC-da hadalkeeda iyo sawiradeedu iskhilaafaan? maxaase ka run ah waxa halkaas lagu sawiray? si aan u xaqiijiyo waxa sawirkan ka run ah ayaa waxaan dib u fiiriyay xukunkii maxkamadda oo uu ku qornaa meelaha ay Soomaaliya sheeganayso iyo halka ay Kenya sheeganayso. waxaana ku calaamadeeyay Google Map-ka. qaybtan ayaa ah xadka ay sheeganayso Kenya halka uu lane-kanina yahay xadbadeedka ay Soomaaliya rabtay. bal markana aan fiirino sida ay maxkamaddu u xukuntay iyo lane-kii ay maxkamaddu ka dhigtay inuu noqonayo xadbadeedka rasmiga ah ee labada waddan. markaad fiirisid ayaa waxaa arkaysaa in badii badankeed loo xukumay Soomaaliya oo qiyaas ahaan 75% la raaciyay dhanka Soomaaliya. haddaba maxay BBC-du warbixinteedu sawir khaldan uga bixisay kiiska badda ee labada waddan? horta warbixinada iyo sawirada waxaa diyaariyay BBC-da qaybteeda Afrika oo xarunteedu tahay Nairobi. haddaba waxaa dhici karta in wariyeyaasha Kenyaatiga ee u shaqeeya BBC-da ay u xaglinayeen waddankooda iyagoo ka dhigayay in qayb badan oo badii ka mid ah Kenya la siiyay. ilaa wax kale oo lagu fasiro garan maye maadaama ay isdiidan yihiin warbixinta ay BBC-du diyaarisay oo tusaysay ama ay sheegaysay in badda badankeed Soomaaliya loo xukumay iyo sawiradan meesha ka muuqda oo muujinaya in xadkii badankeed Kenya la siiyay. wariyaha VOA-da Haarun Macruuf ayaa waxa uu sawirkan weydiiyay mid ka mid ah qareennada Soomaaliya. qareenkaas ayaa markaa wuxuu ku jawaabay in lane-ka la yiri Soomaaliya sheeganaysa uu yahay been cad oo aan waxba ka jirin balse ay Soomaaliya rabtay in xadka laga dhigo lane-ka loo yaqaan equidistant line-ka oo ay maxkamaddu xoogaa kor u qaaday samaysayna lane cusub oo ay ka dhigtay xadka labada waddan. taasoo ka dhigan in badanaa badii loo xukumay Soomaaliya oo aan loo xukumin Kenya sida sawirka ama khariidada BBC-du ay ka dhigaysay. intaasi ayaa noogu jooga barnaamijka maanta intii aan mar dama kulmi doono nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullahi.